kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan hambalyo shacabweynaha SSC qaatumo dal iyo dibad meel walba aad joogtaan barnaamijkan wuxuu gaar u yahay maamulka SSC waqtiga uu baxayana waa xilli aroor ah ama subax ah waxaa laga yaabaa muuqaalkan isagoo live ah inaad daawato waxaa suurtagala isagoo aan live ahayn inuu muuqaalkan aad daawan doonto insha Allah ma la soo koobi karo farxadeyda ma la soo koobi karo shucuurteyda lama soo koobi karo sida aan ugu faraxsanahay aqoonsiga dhammaystiran ee maamulka SSC qaatumo fadlan muuqaalka share gareeya hala share gareeyo waa Cabdullaahi Balwaan waxa waaye raganimadu maalinta dagaalka gasho waa in dagaalkaagu uu noqdaa mid aad ku adkaysato 100% waa raganimo labo waa inaad noqotaa qofka libinta dagaalka markuu yimaado hambalyeeya waa ka xumahay inaan ka soo qayb galay ahayd waqtiga ayaa ii saamixi waayey waxay ku habboonayd xalay inaan joogo magaalada Laascaanood waxay ku habboonayd dhulkaasi inaan xalay joogo laakiin waxa ma dhaanta anigoo jooga fursadii ayaa ii saamixi weyday marka waxa ma dhaanto anigoo joogay la mid tahay marka waxaan leeyahay hambalyo wixii xalay ka dhacay damaashaadkii iyo farxadii waan la qabaa waana soo dhaweynayaa 100% waxaan doonayaa hambalyada barnaamijkayga gaarka ah muuqaalka share gareeya markuu idin soo gaaro wadadii la soo maray qarribkii la soo maray juhdigii badnaa ee la soo maray waxaan doonayaa bal in yar inaan ka faalloodo muuqaalka share gareeya waxaa jirtay dagaalka SSC qaatumo aad baad ugu baahan tihiin maanta inaad wax badan ka ogaataan sababtii ugu kaliftay inaan SSC garab istaago sababtan u garab istaagay hadalhaynta garab istaaga Cabdullaahi Balwaan oo muddo ilaa iyo 2022 ilaa iyo 2025 soo jiitamaysay aniga SSC qaatumo waxaan u garab istaagay qadiyadda Soomaalinimo qofna abaal iyo hambalyo ugama rabin qadiyadda Soomaalinimo waxaan ula jeedaa dagaalka maalintan galayay ee aan qaatay go'aan ah inaan wiil darwiish noqdo welina waxaan ku faanayaa inaan ahay wiil darwiish ah darwiishnimadeyda maalintan qaatay ilaa maanta oo aan ahay wiil darwiish oo ku faanaya waxaan soo maray bal si fiican u dhigeyso dagaalka darwiishnimada aan ku galay waxaan arkay gabar Soomaaliyeed oo calan Soomaaliyeed huwan oo askari saaqo ka yimid Hargeysa waxbad ku riday gabadhii ma aysan dhihin yaa daarooda gabadhu ma dhihin yaa daarooda ma dhihin yaa reer hebela waxay tiri yaa Soomaali ah kelmaddan dagaalka u gal horta kelmaddaasi ahayd yaa Soomaali ah weligay inta aan qaan gaaray waxaan arki jiray dad yaa tola dhahaya ilaan anigu koonfurtan ka soo jeedaa yaa tola yaa reer hebela intaasaan maqli jiray dagaalka saasaan u galay dagaalka juhdigiisa iyo waqtigiisa iyo culayskiisu leeyahay intii aan dagaalka ku jiray SSC qaatumo oo maanta hambalyadeeda aan wado kasta iyo albaab walba waxa iiga hor imaanayay qof aaminsan qabiil cid bini aadana oo sharaf ku haysa ma jirto dadkan wax abaala kuma hayaan dhulbahanta abaal male ha garab istaagin waad ku ceeboobaysaa indhihiinaad ku aragteen maalintan dhulka SSC qaatumo booqday in dhulka layga qaaday la ii soo dhaweeyay si boqran dhulbahanta ay dadaaleen weliba ay ii muujiyeen Soomaalinimo tan ugu sharafta badan boqolaal kumanaan magaalooyinkii aan booqday igu sharfay iguna soo dhaweeyay maalintaas waxaad aragteen in dhulbahanta ay yihiin dad wanaagsan 100% yaqaana dadnimada 100% walaalayaal hal maalin qadiyadeeda ma iibsan darwiishnimadeeda ma gadan kuwii shalay aniga igu dhaliilayay booqashada SSC qaatumo shalay daraad Laascaanood ay buuxdaafiyeen waana ku faraxsanahay in dadkii shalay dhaliisha waday in ay maanta joogaan Laascaanood sharafay ii tahay waxaan la kulmay qadarin iyo qiimo 100% waxaan ku faanayaa marka
inaan ahay wiil darwiisha waxaan ku faanayaa inaan ahay wiil qadiyadiisa aanan iibsan waxaan ku faanayaa darwiishnimadeeda inaanan weligay gada doonayn intaa kadib waqtigu waa gurgurto waa gaadi socday xalay maxaa dhacay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane xamse cabdi barre halkaan aan ka salaamaya ra'iisul wasaare aad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay ra'iisul wasaare waa ku dhaliili jiray waxaan ka mid ahaa raggii kugu tilmaami jiray inaad tahay marxuum laakiin xalay wixii ka dambeeyay salaamtu waa taageertaa ra'iisul wasaare ku dhawaaqista SSC qaatumo aad ku dhiiratay hambalyo waxaan u soo galay waqtigan oo aniga saacadda geeskayga ay tahay 4:00 subaxnimo ayaan kula hadlayaa waa 4:00 waay aan live ka u soo galay farxadda qadiyadda SSC qaatumo iyo darwiishnimadeeda inaan caddeeyo ra'iisul wasaare xamse sayidka nool aad u mahadsantahay waxaan ku faraxsanahay go'aankaad qaadatay go'aankaadana waad guulaysatay waadna guulaysan doontaa xalay maxaa ka dhacay magaalada Laascaanood xafladii ballaarnayd lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha mudane xamse cabdi barre wuxuu ka hadlay caddeeyay SSC qaatumo inay tahay maamul dhammaystiran guulayso maamul dhammaystiran aad u mahadsantahay ra'iisul wasaare sharci ma tahay marka ku dhawaaqistaas haa waa sharci qofna kama hor imaan karo awoodda ra'iisul wasaare aqoon muu leeyahay ra'iisul wasaaraha dalka haddiiba uu ku dhawaaqay finish SSC ha noolaato ku dhawaaqistaasi marka waxaa goobjoog ka ahaa si fiican hadal ku dhegeyso qoro ra'iisul wasaare wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka amniga qaranka taliyaha booliiska gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka golaha baarlamaanka federaalka golo wasiiro dhammaystiran yaa haray marka yaa haray cidna cid hartay haba yaraatee ma jirto SSC xalay mowqifka ra'iisul wasaaraha wuxuu u ahaa go'aan dhammaystiran oo xaqa waana sababta 4:00 subaxnimo aan live u soo galay waa sababta xafiiska marka aan furay aan u go'aansaday inaan shacabkayga SSC la hadlo xafiiskayga shacabka SSC inaan la hadlo oo aan u hambaliyeeyo go'aanka marka go'aanka gaarista ugu dambeeya waa ogahay nin xasan sheekh la yiraahdo wax kasta xasan man qiyaasi karnaa ma xasan sheekh la qiyaasi karaa xasan waxa waaye adoo ka sugayo biika ciyaaraya xasan sheekh waa taqaanaan laakiin arrintan maya cid ka hortegi karta malaha SSC waa dhaqaaqday way ku dhawaaqistan marka process miyay maraysaa lama rabo dee nacayb lama rabo runtan ka hadlaynaa annagu ama aniga cabdullaahi balwaan ahaan xaqan waa ku addama aniga cid aan uga baqa malaha go'aankan ama hala diido ama hala ogolaado cid bini aadana oo sharcigii xalay la saxiixay ka hortegi karta ma jirto mudane cabduqaadir firdhiye shirka madasha wada tashiga ayuu ka soo muuqan doonaa shirka madasha wada tashiga ayuu ka soo muuqan doonaa cabduqaadir firdhiye qof aniga iga dambeeya ha weydiinina yaa hor istaagi kara cidna ma dhici kartaa garabka beesha caalamka inay waayaan SSC qaatumo maya haddan idin caddaynaya waraysigii xasan sheekh maxamuud uu bixiyey beesha caalamku waa ku canaanatay waraysigii uu dhabarka nooga toogtay xasan sheekh ee uu ku hadlay hadal aan munaasab ahayn beesha caalamku waa ay amar adagaa la siiyey waxaa la yidhi maya amar adagaa la siiyey waxaa la yidhi maya dadkaas waa dad aan weligeyn hore u arag gaaladiyaa yaaban beesha caalamkaa yaaban weligeen maba aragay dhaheen dad dowladnimada jecel innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dad daacada gaaladii waa yaabeen waxay yidhahdeen war soomaalidan kale qaati bilaahi aan ka taagnay dad daacada oo nadiifa SSC qaatumo waa lala yaabay waxaa la yidhi dadkaas dad aan ahayn soomaali maba joogaanba waana saxo daacadnimadooda banaanbaxyada muqdisho ka dhaca ama inta kale soomaaliya wallaahi lacagaa lagu bixiyaa soo dhaweynada lacagaa lagu bixiyaa
soo dhaweyn free ah dhulka SSC qaatumo kaliya ka jirta mudaharaadyada aad arki jirteen iyo soo dhaweynta iyo mahadcelinta iyo damaashaadka iyo lacagaa lagu bixi jiray wallahi billah muqdisho kii ugu dambeeyay xitaa lacagaa lagu bixiyey dad aan lacag rabin oo qadiyadooda ay ka weyn tahay subax wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada salaana la ii soo qorayaa isla weynin ma qabo dadkayga waa jecelahay waan ka qaadaa salaanta soo dhawaada subax wanaagsan odagii cabdullaahi balwaan ahaa fursad xumo awgeed wallahi laascaanood baan ka maarmaa ma laascaanood baan ka maarmaa mayo wallahi billah jaaniska igu xumaaday xalay way ku habboonayd hoolkaas inaan fariisto laakiin fursadda igu xumaatay raalliga ahaada waxa weeye meesha aan joogo ayaan ka taageersanahay dhulka SSC qaatumo marka soo dhawaada subax wanaagsan marka waxaan rabaa marka inaad ogaataan dadkaas waa dad Soomaalinimadu ay ku weyn tahay xalana ra'iisul wasaaruhu waa u hiiliyey rag baa ka horreeyay oo u hiili waayay SSC qaatumo waa loo hiiliyay xalay waxaan leeyahay muhiimadda ugu weyn ee aan ku celcelinayo bal hadalkayga meel iga qora calaykum asalaam waraxmatullahi soo dhawaada dhammaantiin hadalkayga meel iga qora in SSC la aqoonsado naf iyo maal ayaa loo xuray dad baa god u galay in ka badan 500 qofood nooga dhimatay SSC la aqoonsado waana la aqoonsaday intaasaa kugu filan mana dhicin weli bal ii soo qora hadday dhacdo wallahi hadda kadib hadalkayga ha aaminin ma jirtaa meel aan SSC ahayn oo kulmisay intaas oo qof oo mas-uuliyiin dowladda ka mid ah ma jirtaa